shirkan oo ahaa mid ay aad u xadidnaayeen wararka laga helayo muddo 5 maalmood oo uu si toos ah uga soconaya degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan halkaas oo isugu soo urureen mas'uuliyiin ka kala timi gobolada Baay, Bakool, Jubbooyinka, labada Shabeelle, Gado iyo Galgaduud oo dhamaantoodba si gaar ah uga tirsan maxkamadaha shariicada Islaamka. Sheekh Abdulqaadir Cali Cumar oo ah gudoomiye ku-xigeenka maxkamadaha Islaamka ayaa isagoo ku sugan degmada Jallaqsi saxaafadda u sheegay shirkaas uu maanta u soo xirmay kuna soo gabagabay jawi degan iyadoo la isku raacay dhammaanba qodobadii laga wada hadlo oo ay ugu muhiimsanayd in aragti midaysan saraakiisha maxkamaduhu ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya ay ka qaataan khilaafka madaxda sare ee isbahaysiga. waxaa ogsoonta ayaanlow ragga iskhilaafay waa mas-uuliyiintii maxkamadaha islaamiga ah waxaa ahayd khilaafkaas inuuna saameyn ku yeelanin ragga halkan joogo maxkamadaha islaamiga awoodooda halkan joogsanaysa oo inay khilaafkaas saameyn ku yeelanin taasna waa la isku waafaqay. shirkan ayaa qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in maxkamadu ay xalilaan khilaafkaasi oo loo saaro guddi culimaa u diina oo laga xuli doono shirweyne lagu wado in sida uu sheegay Sheekh Abdulqaadir Cali Cumar dhawaan ay ku qabtaan gudaha dalka Soomaaliya. shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa sida la sheegay ku dhawaad 100 sarkaal oo ka tirsan maxkamadaha Islaamka Soomaaliya. gudoomiye ku-xigeenka maxkamadaha ayaan weydiiyay cidda uu ka tilmaami karo ragga shirkani goobjoogga ka ahaa. way fara badan yihiin runtii aniga kula hadlaya ayaa kamida waxaa kamida Yusuf Dhacda ayaa kamida waxaa kamida Ibrahim Shukri baa kamida Sheekh Maxamed Bishaar baa kamida dalka yimid way fara badan yihiin mas'uuliyiin kala duwan oo meelo kala duwan ka yimid baa kamida. shirkan ayaa noqonaya kii ugu weynaa inta la og yahay maxkamaduhu ku yeeshaan gudaha dalka tan iyo markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen dalka Soomaaliya dabayaaqadii sanadii 2006 xilligaasi awood military lagu weeqay maamulkii maxkamadaha Islaamka oo si dhaba gacanta ugu hayay inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. waxaa tani aad moodaa inay u suura gelisay markii xoogagga ka tirsan dagaalyahanadu ay weerar toos ah ku qaadeen maamuladii dawladda ku meel gaarka u matalaya gobollo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya kuwaas oo hadda gacanta ugu jira isbahaysiga dib u xuraynta. waxaana qodobada ka soo baxay ka mid ahaa shirkan ay ku yeesheen degmada Jallaqsi maray ka hadlayeen arrimaha ammaanka in maxkamadu ay muqaddas ku tahay inay dagaalka sii wadaan taniyo inta ciidamada Itoobiya ay cagta ku hayaan taako ka mid ah ciidda Soomaaliya. ugu dambeyntii shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka Djibouti uu shir uga soconayo guddiyo dib u heshiisiineed oo ka kala socda mucaaradka iyo dawladda ku meel gaarka. waxaana muuqata inay adag tahay sida raggan ka dagaalama gudaha Soomaaliya looga iibiyo waxa ka soo baxa shirkaasi tan iyo inta laga xalilayo khilaafka garabyada isbahaysiga ee Asmara iyo Djibouti. ayaan la Xuseen Cabdi BBC Muqdisho.